horta cid kasta oo deegaankan degaysa annaga waa soo dhaweeynaa waxaan si gaar u soo dhaweeynaa xildhibaanada mar hore ayaa dhul sii lahay laakiin meel kale fiirinayeen marka hadday soo jeestaan oo iimaansanaa cadaada waxaan ballan qaadaynaa inaan deegaan rasmi siinayno oo dhul rasmi aan siinayno nin walba meeluu deegaan siinayno waxaan kaloo ballan qaadaynaa xildhibaankii inta soo dega ilmihiisu ay iskuulka ay lacag ku dhiganayaan iskuulaadka cadaada looga marka waxaan leeyahay barnaamijkaas waa ballan qaadaynaa haddii ilaahay ilmo waan dejinaynaa xildhibaanada guryaha waan raqaysanaynaa waa la soo dhaweynayaa waxaan leenahay xildhibaanadana iyaguna meesha ay fiiraayeen iska daaya xaruntoodii waa tanaaye cadaad ha soo fiirsheen aan leenahay wasiirkana waxaan leeyahay haddii ku doono xildhibaanada deegaamada sii lahayd waa maasantay wasiira gudoomiyaha degmada Cadaado waxaan soo dhaweynaynaa si buuxda dhulka gudoomiyuhu caawakan uga soo jeediyay inay u deeqayaan baarlamaanka Galmudug inkastoo aan jeclayn inuu dhulka iyo cabirkiisa iyo sidoo kale faafaahin ka bixiyo aad u cadeeyo meel aad laba ugu deeqan afka sheeg dhulka baarlamaanka u diyaarinaa xarunta baarlamaanka waa 200 waana diyaar xildhibaan kasta waxaa guri ka dhisanayo waxaa siinaa 50 per 50 marka soo dhawaada